shirkii magaalada Kismaayo saddex maalin kadib 17 qodob war murtiyeed aan waxba laga bedelin kii soo baxay 2019 ee magaalada Kismaayo ka soo baxay xilligii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mucaaradka maanta ku shiraya magaalada Kismaayana ay xilligaasi soo saareen iyadoo waliba uu kamid ahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud shirar kulamo aragtiyo bayaano digniino aan waxba ka bedelin kuwii ka soo baxay madashii samata bixinta ee ku shireysay sanadihii ugu dambeeyay hotel Al Jazeera ee magaalada Muqdisho haddaba maxaa isbedelay muxuu saameeyna oo keenaya war murtiyeedkan ka soo baxay maxaa ku qoran warqadahan la soo saaray 2019 iyo 2025 maxay ku kala duwan yihiin war murtiyeedkan ay soo saareen mucaarad maxay tahay sababta mucaaradku uu isku bedeli lahayaa aragtidooda ay u taagan tahay hal meel maxaa loo bedeli lahayaa aragtida siyaasadeed ee ay qabaan dowladda federaalku maxay ka tiri war murtiyeedkaasi soo baxay madaxweyne xasan oo go'aan hor dhigay madashaasi ama golaha mucaaradka ku shirayay magaalada Kismaayo go'aankaasi waxa uu yahay 17 qodob ee la soo saaray waxa ku qoran mid ayaan iyadana u dul istaagi doonaa xogihii ugu dambeeyay shirkaas iyo sidoo kale falanqeeyaasha siyaasadda Soomaaliya waxyaabaha ay ka dhaheen shirkaasi saddexda maalin ay tuweynta mucaaradka Soomaaliyeed ay u fadhiyeen waxa soo baxay iyo culayska siyaasadeed ay ku keeni karto hanaanka geedi socodka doorashada ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaan soo qaadan doonaa haddii alla idmo waxaan dhanka kale rabaa inaan dul istaago siyaasadda Soomaaliya amaba saamileyda siyaasadeed ee Soomaaliya waxa hadda ay u kala safan yihiin saddex garab waa garabka Kismaayo ku shirayay ee golaha mustaqbalka Soomaaliya la magac baxay filla Soomaaliya oo madaxweyne Xasan uu horkacayo iyo waliba garabka ugu culus ee ugu saameynta badan oo uu horboodayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isbarbardhig ayaan iyadana ku samayn doonaa haddii alla idmo soo dhawaada idinku aragtidina igula wadaaga qaybta commentiga aan ku bilaabay saddex maalin kadib shirka socday magaalada Kismaayo ayna lahaayeen saddexda garab ee isku yimid ee la baxay golaha samata bixinta Soomaaliya ama golaha mustaqbalka Soomaaliya la magac baxay saddexdaasi garab oo kala ah Jubbaland Puntland iyo waliba mucaaradka oo qaybta samata bixinta Soomaaliya la magac baxday Sheekh Shariif uu hogaaminayay ayaa ku shirayay magaalada Kismaayo saddex maalin kadib war murtiyeed ayay soo saareen 17 qodob ayaa laga soo saaray shirkaasi intaana dul istaagin oo aanan faahfaahinin 17 kaasi qodob waxaa xusuus mudan in 2019 magaalada Kismaayo lagu qabtay shir noocan oo kaleeta oo markaasi ay lahaayeen mucaaradkii Soomaaliya inta hadda fadhiday oo uu ka maqan yahay Xasan Sheekh Maxamuudna ay halkaasi ku shirayeen ayna ka soo horjeedeen hanaanka siyaasadeed ee markaasi madaxweynihii talada hayay ee Farmaajo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shirkaas nuxurka xilliga ka soo baxay iyo nuxurka hadda soo baxay hal qodob iskaba bedelin waa wadadii shalay 2019 oo ay ka soo wareegatay 7 sano ka badan in maanta mucaaradku ilaa iyo xilligan ay halkii taagan yihiin waa halkii warmurtiyeedkan iyo warmurtiyeedkii xilligaas soo baxay wax iska bedelay haba yaraadee ma jiro qodob lagama bedelin hal qodob lagama bedelin waa hal qodob dastuurku inuu 12 ahaado 2012 uu ahaado waxba aan laga taabanin doorashadu inay noqoto teendhada efesioni beesha caalamka in digniin loo diro baaq loo diro waxa weeye in goluhu uu doonayo waxa weeye in gogol la iskugu imaado doorashada loo gacan galiyo filla Soomaaliya inay dhinac ka fadhiisato wixii uu xilliga la qoray baa haddana baraha bulshada lagu soo baahiyay maxay tahay sababtu maxay siyaasadda Soomaaliya isku bedeli lahayd maxaa siyaasadda Soomaaliya hal 20 sano iyo waliba xoogaa maxaa siyaasadda Soomaaliya ka dhigay hal wado oo isku bedeli lahayd sababtu maxay tahay siyaasadda Soomaaliya loo bedeli lahayd halka wado loo hayo waliba halka wadana khilaafku uu taagan yahay maxaa dastuurka loo diidan yahay in wax laga bedelo oo 2012 ku jaangooyay 2012 cunugii dhashay qaangaadhe maxaa 2012 loogu jaangooynayaa oo midka 2025 loo diidan yahay
maxaa dadka Soomaaliyeed loogu diiday doorasho qof iyo cod inay aadaan maxaa loogu hordayaa wado dhow 20 iyo dhowr sano lagu soo jiray in lagu sii jiro maxay tahay sababtu waxa halka ka cad kulli qof walba waa garanaya waa dan shakhsi ma aha dan bulsho ma aha bulshada Soomaaliyeed waxa iyaga u roon qofka matalayay inay soo doortaan si xor ah ku soo doortaan ku soo saartaan baritaa xumaadana uusan ku soo laabanin oo sidaa uu ku dhaaf hadduu xumaado dee meel ku tartamaya male asagaa ba iska sii tagi borsadiisu sii qaadanaya waxaa marka imaanaysa in qofka yimaada uu yiraahdo si markale aad u soo noqoto bulshada wax u qabo wixii lagu soo doortay qabo keligii cunka iska dhaaf bulshadaada u danqo inuu yiraahdo ayaa imaanaysa si kastoo noqotaba warmurtiyeedka 17 qodob ayuu ka kooban yahay kii 2019 Kismaayo laga soo saarayna intaas ayuu ka koobnaa qodobadan ku qoran umaara ku qornaa bal way aynu dul istaagna marka midka hadda la qoran waaba isku nooc kii hore weeye aynu dul istaagno madashu waxay soo saartay horta 17 qodob qodobka koobaad in shirweynuhu oo mudnaanta koobaad siiyay dhaheen midnimada wadajirka ummadda Soomaaliyeed kana hortago wax kasta oo dhaawacaya midnimada dalka iyo dadka waa qodobka koobaad xilligaana saaw baa laha hadii midnimada iyo wadajirka iyo waxa weeye ummadda Soomaaliyeed dadnimadooda la ilaalinayo looba adeegeen cadow jaajuusiin laba noqdeen dan shakhsiyeed laba raadsadeen waan ogsoonahay waxa meesha lagu hayay ummadda Soomaaliyeed waa ka dharagsan tahay faahfaahin uma sii baahna laba in meel looga soo wada jeesto bay dhaheen oo isku dhinac looga soo wada jeesto iskana kaashado sidii dalka looga badbaadin lahaa firaaq dastuuri ah hubanti la'aan siyaasadeed iyo halis cadowga argagixisada AS iyo Daacish in waxa weeye dalka isku dhinac looga soo wada jeedsado oo firaaq dastuuri ah uusan dhicin iyo hubanti la'aan siyaasadeed iyo in kooxaha argagixisada ay markaasi aysan qabsanin gudaha Soomaaliya waa qodob muhiim ah saddex in heshiiska bulsho ee dawlad dhiska Soomaaliya uu saldhig u yahay baa leeydi dastuurka kumeelgaarka ah ee 2012 sidaas darteed wax ka bedel kasta oo lagu sameeyo bay dhaheen dastuurka inuusan noqonaynin mid goluhu uu aqoonsanayo ama uu aqbalayo 2012 lama dhaafi kara baa leeydi dastuurka halkaas waa inuu taagnaadaa waaye afar shirweynuhu wuxuu hoosta ka xariiqay bay dhaheen in mudaxilaadkii golayaasha baarlamaanka uu ku eg yahay 14 Abriil 2026 halka midka madaxweynahana uu ku eg yahay 25 May 2026 sidaas darteedna aan lagu sameyn karin wax bedel amaba muddo korarsi aan lagu sameyn karin shirweynuhu wuxuu diyaar u yahay baa leeydi waa shirweynuhu wuxuu diyaar u yahay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kala xaajoodo sidii dalka looga qaban lahaa doorasho heshiis lagu yahay daahfuran ka hormarsan doorashadii 2022 lix shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa madaxweyne Xasan Sheekh in uu muddo bil gudaheed ah oo ku eg 20 January 2026 iskugu yeedho siyaasiyiinta ama saamileyda siyaasadeed ee dalka si looga heshiiyo doorashada xilligeeda ku dhacdo oo waafaqsan mabaadi'da ku xusan qodobka 5 ee dastuurkii 2012 toddoba shirweynuhu wuxuu isku raacay in haddii madaxweynuhu iska dhagatiro baaqa kor ku xusan uu golaha mustaqbalka gudanayo baa layidhi sidii loo qaban lahaa doorasho looga hortegayo firaaq dastuuri ah qalalaase amni
iyo halista argagixisada marka shirweynuhu haddii uu baaqaas madaxweynuhu iska indhatiro golahan wuxuu qaban doonaa doorasho looga hortegayo firaaq dastuuriya oo ummad Soomaaliyeed bay doorasho u qabanayaan iyaga oo cadaalada sida iyagu ay sheegayaan argagixisadana looga hortegayo inaysan qabsanin talada dalka aysan la wareegin sideed shirweynuhu wuxuu arkaa doorashada ka socota bay dhaheen gobolka Banaadir in ay tahay doorasho hal koox wadato laguna kala qaybinayo shacabka gobolka Banaadir xaqoodana lagu duminayo bay dhaheen waase iyagu hadalka u dhigeen maadaama aan heshiis laga ahayn nidaamka doorasho ee halkaasi lagu qabanayo sagaal shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa madaxda dowladaha xubnaha ka waa dowlad goboleedyada federaalka Soomaaliya ee mutaxilaadkoodii dhaafay in ay qabtaan bay dhaheen doorashooyinka hay'adaha dastuuriga ah si waafaqsan dastuurka iyo xeerarka doorasho ee u degsan maamul goboleedyadaas u degsan in doorasho ay qabtaan 10 shirweynuhu wuxuu la dareen yahay baa layidhi dadka danyarta ah ee la barakicinayo waa dhulkii danta guud ee dowladda federaal ay markaasi dadkii ka kicinaysay dadka danyarta ah ee la barakicinayo ayuu shirweynuhu la dareen yahay wuxuuna cambaaraynayaa madaxda dowladda federaalka ee ciidamada amniga u adeegsanaysa barakicinta dadka danyarta ah halkii ay ka daryeeli lahaayeen 11 shirweynuhu wuxuu ka digayaa cuburinta iyo xadgudubka joogtada ah ee dowladda federaalku ku hayso saxaafadda madaxa bannaan iyo iskuulaadka lagu khasbayo in ay ka qayb galaan doorashada kooxda madaxweynaha ay wadato 12 shirweynuhu wuxuu bogaadinayaa ciidamada kala duwan ee Soomaaliyeed ee naftooda u huraya difaaca dalka furimaha kula dagaalamaya cadowga argagixisada ee dalkeena Soomaaliyeed iyo dadkeena Soomaaliyeed dhibaatada ku haya magacyo ay iyagu ku qoreen laakiin meelaha qaar magacyada lama jeclo in markaasi aan banaanka soo dhigno 13 shirweynuhu wuxuu garowsan yahay baa layidhi dhibaatooyinka siyaasadeed dhaqaale amni bini'aadanimo ee shacabka Soomaaliyeed wajahayaan wuxuu kaloo walwal ka qabaa cadaadiska iyo faaquuqa lagu beegsanayo shacabka Soomaaliyeed ee qurbaha iyo kuwa maalgashaday dalalka shisheeye haddaba shirweynuhu wuxuu golaha mustaqbalka u soo jeedinayaa in ay mas-uuliyad iyo xil iska saaraan waddo kasta oo u maraan ama waddo kastaba u maraan in shacabka Soomaaliyeed ay helaan mustaqbal wanaagsan shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed in ay ku baraarugaan xaaladda adag ee dalka iyo dadkuba marayo waa qodobka 13 si kastoo noqotoba qodobadan kaleeto 14 waa baaq loo dirayo beesha caalamka dowladda federaalka iyo in markaasi shirweynuhu uu aad iyo aad uga xun yahay abaaraha iyo dhibaatada dadka Soomaaliyeed ay ku jiraan muhiim si ah marka waxa ugu muhiimsan ee meesha la marka waxa weeye ee ay ka hadleen waa ahnaanka doorashada iyo in madaxweynuhu uu dhigo gogol looga doodo sidii doorashadu ay ku dhici lahayd waa arinta ugu weynee sida weyn la isku hay waxaan kale waa budbudu dastuurka 12 ha joogo sida ha lahaado waxaana wax soconaya maaha waxaa xusib mudan in qodobadan hadda meesha ku qoran ay yihiin kuwii 2019 waxna aysan iska bedelin madaxweyne xasanna mama isdhibine wuxuu yidhi intaad shirtaan ha shirina malihin ood isku tagtaan
وأن مدفن نذان وحلا قرانا يسو سارة نوعي ماذا وأن إذا كلا دودينا حتى نقوقا عسان وأن إذا كرا عينا حتى نقوقا عويدانا دي وحوية تعنى عارهينا إذا سوى بندقينا أنا وحا نقو مبادينا ندو ويقريه بوير وردولدين warqad buu ku yaalaa anagu waxaana way qoran yihiin xeerka dastuurkay ku qoran yihiin xeerka doorashaday ku qoran yihiin gudiyada doorashada soo bandhigaya baarlamaankay hor yaalaan oo la geeyay waxaanagu waa wax dastuuri oo dowladnimo ee bal intaad idinku fadhiisataan ood shirtaan ood wada hadashaan wax la garanaya oo la fahmi karo noo soo saara oo haddana no hor keena waan idin kala doodaynaa gobashan marka ay soo jeediyeen waa muhiim halka qodob ee muhiimka ee maanta la fahmi karo waa midda kaliya madaxweynuhu intaad gogol noo dhigto aynu ka wada hadalno doorashada sida ay u dhacayso oo aynu ka heshiino waa qodobka kaliya ee saddexda maalin wixii loo fadhiyay laga fahmi karo waa qalka qodobka ku jira inta kale oo dhan waa wax u adeegaya darasheeye wax shacabka Soomaaliyeed u adeegaya kuma jiro nimankaas marka meesha ku shiraya waxa halka kaaga cad inay yihiin dad la soo dirsaday waa dad la soo dirsaday ma aha dad ummadda Soomaaliyeed ka danqanaya oo danahooda u taagan ma waa inay dadka Soomaaliyeed ay sidaas fahmaan waa barokayaal shisheeye ka dilaalaya dhulkoodii bay dilaal ka yihiin shisheeye ayaa soo diray waa dilaal dhulkooda doonaya inay dilaalaan waa inay dadku fahmaan weeye waa dad fahmi waayay war 2019 wixii aynu ku doodaynay inaan 2025 haddana ku sii doodno macquul ma noqonaysee bal aynu wax ka bedelo war 2019 baa waxaa leeyahay dastuurka 12 yaa la dhaafin maantana waxaa leedahay dastuurka 12 yaa la dhaafin maxay tahay aqliyadaas noocaasa maxaa loo dhaafinayno waxa way ku duwan dastuurka Soomaaliyeed inuu adeega lama rabo soo dad Soomaaliyeed ma laha maxaa 2012 loogu dhagayay maxaa doorasho qof iyo cod loo diiday maxaa dadka Soomaaliyeed inay horay u talaabsadaan loo diiday oo lugta loogu dhagay micnaheedu waxa weeye markaa go'aan dadnimo wadaniyadnimo malaha waa dad la soo dirsaday oo malaf wata meel kale laga soo minguuriyay iyo waxa weeye hunguri kaliya ku shaqeynaya inay wax soo qaataan dadkooda iyo dalkooda ay ku duleystaan rabo way waa in dadka Soomaaliyeed ay sida u fahmaan midda kale Kismaayo la iskugu yimid waxa la yiri Kismaayo waxa looga arinsanayaa dimuqraadiyad doorasho xor iyo xalaal hal booliya dhirig xalaal ma dhasho hal booliya la soo dhacay dhirig xalaal ma dhalayso meesha dimuqraadiyadda laga sheekaynayo dimuqraadiyadda laga sheekaynayo soo meesha senataradu ay ku xidhan yihiin ma soo meesha tacadigaad aragtay uu ka dhacay ma soo meesha dadkeennii Soomaaliyeed lagu dhibaateeyay ma soo meeshan aan doorashada 14 sano ka dhicin ma soo meesha halkan inuu iska fadhiya ma Axmed baa maanta intii la fadhiisto haddii ay jirto waxa weeye damiir wax kala fahmi kara amaba ummad u naxaya ma Axmed baa intii maanta loo tagaa la dhihi lahaa dimuqraadiyad nooga sheekee Axmed baa la dhihi lahaa ilaahay baa inagu dhaariyey taana iyadana dadka Soomaaliyeed waa inay maqraati ka noqdaan war senatarro xasaarada haysta xidhan dimuqraadiyad baana lagaga sheekaynaya oo Kismaayo dhexdeeda waxa leeyahay dimuqraadiyadda madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Isra xagee Axmed ugu doortay dimuqraadiyadda meesha ka jirta waa xagee maxay tahay dimuqraadiyadda senatarrada xasaarada haysta maxay u xidhxidhayiin ma laga hadlo haddii mustaqbal Soomaaliyeed iyo badbaado ummad Soomaaliyeed laga hadlayo kuwa xidhan ma la soo badbaadin taana iyadana dadka Soomaaliyeed waa inay fahmaan weeye hadal nima runta ka sheegay been baa u kaydsan aniga waxaad igu imaanaysaan run iyo xaqiiqo inaan ka hadlo cidna aniga gaara dadka Soomaaliyeed baan u shaqeeyaan qofka la dulmiyay iyo dadka Soomaaliyeed waxa dan waa baan mar walba halkan u fadhiyaa cid gaar oo adeegayna ma jiro waa in dadka Soomaaliyeed marka taas ay qaataan oo ay fahmaan weeye war mudiyadkaas soo baxay waran badan